abo waxaa ka dhacday dhacdo fool xun oon aad ugu argagaxnay ka dhacday dhacdadaasoo shalay 4 saac mar ay ahayd ka dhacday meel xuduudda Kenya oo dhanka Kenya dhacdadaasoo gabdho 5 oo lagu kufsaday gabdhahaas hadda mid ma hayno ilaa hadda 4 kale yaan helay isbitaalada hadda ku daweyn haynaa sidaas ay arrintu dhacday labada maamulna way iska arkeen waxaa la yiri cadaynta iyo si wax u dhaceen yaan raadinaynaa marka sidaas ay wax u dhaceen waa halkee xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan deegaanka ama tuulada kufsiga waa dhanka koonfurta waa koonfurta deegaan aad magaciisa noo sheegi karto oo gabdhaha lagu kufsaday miyaa jira Mandheera dhankeeda koonfureed waaye meeshaas waaye beeraha Koromey meel ka sokayso waaye oo waxa ugu dhow Bakoro waa garta gabdhaha yaa kufsaday marka gabdhaha ciidamada Kenya oo militariga kufsaday gabdhaha la kufsaday hadii ay 5 ahaayeen ma 5 gabar 5 askari miyaa kufsatay ma tira inta ka yara kufsatay mise guuto ciidan oo gabdhaha ka badan kufsadeen may waxa kufsaday ma adigu markii ay nooga sheegeen inay tiradooda yihiin 10 ay noo sheegeen sidaas ay gabdhaha noo sheegeen hadee inkasta oo qof argagaxay xaqiiqintiisa ay badan tahay laakiin intaas ay noo xaqiijiyeen militariga way qabeen hal madki weynaa way gashanaayeen marka ciidamada militari ahaayeen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo gabdhaha ma dhowr goobooda lagu kala kufsaday mise way isla socdeen oo hal meel dhamaantood si wada jir loogu kufsaday gabdhaha hal geeda la isku keenay kolkii midna waa qoona gabdhaha waardiye ka haysay waa isku bedelayaan qoona gabadha la wadaya ku soo kufsada tan loo keenaya isbeddelkii kala la wadaya saasa lagu kufsaday gabdhaha qaarna qoriga lagu hayay gabdhaha maxay sameynayeen halka lagu kufsaday maxay ka qabanayeen ma deegaan ahaan ay u joogeen mise safar deegaan ahaan waxay magaalada ay u soo socdeen Mandheera gabdha caano watay ahaayeen iyo xaaba oo magaalada ay u soo qaateen waa garta ciidamada Kenya gabdhaha kufsanay ma halkaas ay ku sugan yihiin mise iyaguna safar ay ahaayeen oo halkaas ay ku wada kulmeen mulay ma naqaan jidkun bay u galeen si noo sheegay jidkun bay ugu soo baxeen gabdhaha la kufsaday waxaad sheegtay inay 5 yihiin midkoodna uu hadda maqan yahay ama mid kamid ah ilaa iyo waqtigan maqan tahay 4 kale halkee la geeyay 4 kale hadda waxay ku sugan yihiin xalay buuraha way bariyeen ay ku sugnaayeen laakiin baaritaan Mandheera ayaa loo gudbiyay hadda Mandheera ay ku sugan yihiin baaritaanka halkee lagu sameeyay yaasa ku sameeyay baaritaanka marka hore baraxa oo lagu sameeyay in la wada kufsaday waa la helay waa la isbitaalku soo saaray ayagana hubkii warqadii loo geeyay waxay dhaheen annaga dib u baarayna hadda baaritaankoodii ku socda marka gabdhaha 4 kale maxay idin sheegeen oo gabadhii la socotay iyaga halkee looga reebtay gabadhii la socday kolkii magaalada aan isla soo galnaa ugu dhameysay dheen waa naga leexatay laakiin halkii dhamaantood lagu kufsaday way ka soo raacday way ka soo raacday marka beled xaawiya ka waday oo Mandheera u waday gabdhihii 4 ahaa waxa u waday maamulka degmada Balaxaaw maamulka iyo odayaasha gabdhaha goormay wadeen saakadi mar 3 saac ay wadeen marka saaki 3 saac ay wadeen labada dhiisa wada kulmay labada dhiisa daweed kolkii wada kulmeenna baaritaan baan sameeynaynaa baa la yiri hadda saas un bay hawsha maraysaa halkaas ay taagan tahay waa garta waxaan rabaa gabdhaha 5tooda da'dooda ma ii sheegi kartaa ama ma qiyaasi kartaa gabdhaha 5 waxa waaya laba waa 25 jiryaal mid waa 20 jir mid waxa waaya 15 jir waa gartay ma gabdha la qabay yahay mise gabdha aan wali la guursan gabdhaha 3 waa la qabaa labana lama guursan waligood waa gartay hadii Mandheera la geeyay ay wada hadleen maamulkii iyo maamulka Mandheera iyo maamulka beled xaawo idinkuna aad xiriir la sameeyeen maxaa la idin sheegay waxa uu noo sheegay in arintaas wax laga qaban doono haduu alla idma haday labada maamul wada tageen intaas baa hadda noo sheegay taas baan hadda warkaas ma sugeynaa haduu alla gabdhaha qoysaskii dhalay ayaad adigu kamid tahay Soomahan qoysaskii dhalan kamid ahay
gabadha la waayo ma tii aad adigu dhashay mise waa afarta kale mid ka mid ahayd wallaahi waxaa waaye qolooyinka kale waaye